أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. صدق الله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الله عبد الرحمن مركلته iyo casharadii hanuun ee ugu hadli jirnay ijaasul qur'aan iyo waxyaabaha la xiriira oo mucjisooyinka qur'aanka iyo waxyaabaha macnaha ka dhalanaya fasirada waxyaabaha noocaasa ama fasirka qur'aanka ba tafsiirka qur'aanka meel kamid ah ayada kamid ah soo qaato mar walba oo aan marmar aan maxayaato soo gudbiyo program noocaasa. insha Allah maanta waxaan ka hadli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo cashar ku saabsan laylatul qadriga. waxaad u malaysaa laylatul qadriga inaan si gaara ugu macnaha ugu dhaganahay oo aan aad u jeclahay xaqiiqdii ilaa caruurnimadeedii waan jeclaa laylatul qadriga inaan wax ka ogaado. waa arrin macnaha ii noqotay dabeecad ii noqotay. waxaana jeclaa asxaabteyda maanta inaan u sheego casharadan aan sameeyo ee badanaa ijaasul qur'aan aan uga hadlo tirada badan runtii aad u faraha badan leh oo faa'iidooyinka faraha badan ay ku jiraan sida xuruuf muqaddaca ogaanshahooda oo kaleeto waxyaabaha ay u taagan yihiin iyo waxyaabo noocaas oo cilmiye fara badan oo quraanka dhexdiisa iyo baaritaan fara badan oo quraanka aan ku sameeyay. kow waxyaabihii igu dhaliyo igu horreeyay waxaa kow ka ahay number 1 ka ahay habeenka laylatul qadriga. waxyaabo fara badan oo waxaa jira aan jeclayn inaan miidiyaha aan idin kula wadaago halkan laakiin waqti fara badan aan ku riyoodo laylatul qadriga aniga mana jecel hadda inaan 100% sheego laakiin wax badan aan ka ogahay biidnillahi alkariim. waxaan isleeyahay riyada saadiqada ah ay ahayd oo riyo fara badan oo noocaas ku riyooday ayaa jira oo qayb kamid ah malaa'ika ay sheegeenba anoo riyoonaya macnaha oo jiifa. ala kulli xaal laylatul qadri ayaan aad ugu mashquulsanahay. laylatul qadrina waxa weeyaan habeen aad u qiimo badan weeyaan. الله جل وعلا قرآن كيس أياك هذا ليه وحكى هذا ليه سورة دان عجيب كهذا القرآن كأن 10 كان كفراني سورة الليلة سورة الدخان آية وهر رياضا وحكى هذا يعني ليلة القدر جالس أياك هذا يعني الله جل وعلا ما يشاء حكم بالله بحروفتي أن وما قدر حروف القرآن حاميم والكتاب المبين إلهي كتاب القرآن كأيو قدرتي إن أنزلناه في ليلة مباركة القرآن كوحسود جنهبين بركة سنة يولاه إليه أنزلناه ذا قرآن كيقول الله ونساء في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وأنا دقيناه إلهي دقنين أي سوق بنية سبحانه جل وعلا. فيها يفرق كل أمر حكيم أمر والباء أو حكيم أي إلهي كوك كلا دقيقة أو همين كاس سجا لوصو سارة أمر من عندنا إنا كنا مرسلين أمر النجا حق النجا أيولي الله جل وعلا وأنا درناه مرسلين بانهايو معناها مرسلين الرسول الله دير أيها النقطة أمام حياته أمر هذا الدير أيها النقدين وحيبها سوران إلهي متك أسود درويان سبحانه جل وعلا رحمة من ربك ونحريس إلهي ويان سبحانه جل وعلا ربك غفك الله هذا يو ربك نحريستي ويان أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه هو السميع العليم إلهي مد مغل بدن وآدم مغل بدن علمنا بدن ويان سبحانه جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ربك سموينك إيه أرلاد أسكال ويان وربك ده إيه وحول حيية haddii aad rumaysan tihiin oo yaqiinsan tihiin yaqiin kelimada yaqiin la yiraahdo way ka sii xeel dheer tahay rumaynta. yaqiintu waxa weeyaan wax aad taqaano oo 100% aad hubto weeyaan. marka waxa loo baahan yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala awoodiisa iyo maxayat rabbinimadiisa in la yaqiinsada loo baahan yahay oo la barto. cashar fara badanna waa ka soo gudbi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo qaabka ugu fudud oo Ilaahay aad ku barakarto subhanahu wa ta'ala. Ilaahay maahan macnaha objective maahan wax macnaha la taaba karo oo la dhihi karo sidaas u yaala halkaas uu jooga ama sidaas u yahay ma ahan laakiin waxyaabo aad ku arki karto inuu Ilaahay
macnaha meel walba uu intervention ku yahay ayaan soo bandhigi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo laa ilaaha illaa huwa ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu jalla wacala kelmadda xaqa ayaa halkan lagu soo gudbinayaa ilaahay mooyaane ilaah kale ma jiro yuxyi wa yumiitu isaga ayaa wax dila waxna nooleeya rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawaliin rabbigiin adinka weeyaan adinka rabbigiin waa ilaahay buu leeyahay subxaanahu jalla wacala rabbiga aad iska leedihiin oo xaqiiqada ah waa asaga weeyaan wa rabbu aabaa'ikum alawaliin aabbayaashiina horreeyey rabbigoodiina asaga weeyaan bal hum fii shakin yalcabuun ayuu ilaahay kusoo khatima meeshaan shakiyay ku jiraan iyo ciyaar ayay ku jiraan dadkii xaqiiqada noocaanahoo ilaahay macnaha barashadiisa iyo waxyaabaha uu sheegayo iyo cilmiyadan faraha badan leh iyo waxa naloo abuuray iyo waxa aan la tegi doono maalinta qiyaama ilahay la hortegi doono subxaanahu jalla wacala iyo tadawurada aan samaynayno macnaha gadgadoonkanaga maalin walba aan gagadoomayno iyo waxyaabaha dhici doona iyo waxyaabaha hadda jira intaba ciyaar iyo waxay uga jiraanba lahwi iyo maxay ahayd wax noocaas uu leeyahay allah subxaanahu jalla wacala marka waa digniin runtii ayadda suuradda bilowgeeda ayaa digniinu ku jirtay marka waxa weeyaan meeshaan ha isdhigan weeyaan ee dadaal weeyaan qofkii la hadlayaan alaa kulli xaal waxaan jeclahay inaan iraahdo casharkanagu maanta wuxuu ku saabsan yahay leylatulqadriga waxaan ka soo qaadan doonaa jaanibyo kala gedisan aan ka soo qaadan doonaa waxaan soo qaadan doonaa qur'aanka waxaan soo qaadan doonaa aqwaasha culummada waxaan soo qaadan doonaa axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaan kaloo soo qaadan doonaa cilmiyada habka qur'aanka looga raadi karo leylatulqadriga oo looga arki karo qur'aanka iyo sida qur'aanka wax looga baaran karaba masalan qur'aanka waxyaaba fara badan uu ka hadlayaa jira oo exactly aan la sheegin shaygaas meesha sida uu yahay aan qur'aanka lagu qeexin salaada kamida waxaa kamida zakada kamida waxaa kamida waxyaaba fara badan kamida leylatulqadriga kamida saacatul qiyaamaha ayaa kamida oo saacada qiyaamaha kamida waxyaaba fara badan oo qur'aanku si tikraar ah uga hadlayo fara badan laakiin waqtiga saxda iyo sida saxda ah loo samaynayo uusan sheegin aan qur'aanka lagu sheegin ee laakiin hab cilmiyad ugu dhex jirta ayaa jirta oo fara badan ayaa jirta marka habka loo raadi karo ayaan in badan biidni illahi alkariim ka soo bandhigay waana sii wadi doonaa intii ilahay ifhamsiiyo subxaanahu jalla wacala taasna waa baran doonaa caawa haddii ilaahay yidhaahdo marka sidaasuu noqon doonaa saddexaas qaybood ayaan usii qaybi doonaa casharkan haddii ilaahay yidhahdo qaybta qur-aanka qaybta axaadiista nabiga sala allahu alayhi wasalam iyo aqwaasha culummada iyo qiyaaskayga aniga iyo caddaymaha cusub oo aan hayo haddii ilaahay yidhahdo casharo fara badan ayaan ka soo qaatay marka la soco haddii ilahay yidhahdo waa cashar aad u qiimo badan weeyaan waxaa kaloo jirta in ramadaanka uu nagu soo fool leeyahay mar dhuu noo imaan doono haddii ilaahay yidhahdo marka in loo diyaar garoobo weeyaan 83 sannadood iyo 3 bilood iyo wax la jira ama 84 sannadood ayuu habeenkaas u dhigmaa khayrun min 1000 shahrin ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu jalla wacala waa 84 sannadood qiyaastii marka 84 sannadood ciyaar maahan haddii ilaahay habeenkaas uu ka aqbalo subxaanahu jalla wacala oo habeenka haleesho waxaan jeclahay suuraddii hadda aan soo qaadanay waxay ka hadlaysay leylatulqadriga ka hadlaysay suurad kale oo ku magacaabanna wayba jirtaa qur-aanka oo layidhaha suura qadri suuradda 97 ee qur-aanka gebigeedba waxay ka hadlaysaa habeenkaas leylatulqadriga la yidhahday ka hadlaysaa dhammaanteedba marka bal ila soco haddii ilaahay yidhaahdo waxaa jira leylatulqadrigaas habeenka isaga ah oo cajiibka ah ee qur-aanka lagu dhex qariyey oo aan la tilmaamin si saxa loo sheegin nabigu sala allahu calayhi wasalam uu fasiray mase ma uusan fasirin anigu waxaan leeyahay wuu fasira runtii dad fara badan waxay rumaysan yihin uusan fasirin nabigu wuu sheegay sala allahu calayhi wasalam laakiin ciddii fahmi laheedaa loo baahan yahay bani aadamkana dhibkiisu wuu iska badan yahay waxaa laga yaabaa markii si wax loogu sheego inay si kale u fahmaana laga yaabaa marka nabigu wuu sheegay sala allahu calayhi wasalam habeenka leylatulqadriga wuu sheegay wuxuu ku sheegay wuxuu yidhi 10 dambe ka raadiya 10 dambe ee ramadaan ka raadiya waa tegi doonaa axaadiisaan u tegi doonaa haddii ilahay yidhaha ka hadlaysa 10 dambena weliba waqtiyada witriga ka raadiyo macnaha habeen dheerka 22 23 25 27 29 sidaas oo kaleeto marka dadku asxaabtu nabiga uu iimaanayay markaas waxay dhihi jireen in badan oo kamid ah ay soo jeedi jireen ma habeenka 25 kan aan laazimnaa markaasuu nabigu dhihi jiray sidaa ku wada sallallahu alayhi wasallam ma 22 kan laazimnaa ha sidaa ku wada 23 ka ha raadsha 27 ka ha ka raadsha nabigana dabacadiisaba sidaas ay ahayd sallallahu alayhi wasallam nabigu sallallahu alayhi wasallam dadka hadalka kuma celi jirin ra'yigana kuma celi jirin oo qofku ra'yi hadduu keeno nabigu wuxuu jeclaa inuu u raacaba ra'yigiisa qofka marka qofka hadduu yidhaha sidaas miyaan yeelaa haa yaal buu dhihi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam ahayn wax macnaha dembi ka imaanayo oo macnaha khatar ah oo halisa waxa weeyaan marka waxaan tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo kow axaadiistan ku hormarayna haddii ilaahay yidhaahdo waxaan jeclahay inaan soo qaato xadiis aan isleeyahay runtii
وحديث السيدة نبتة النبي جو شيء ليلة القدر حديث ككلية أن إسلام هو وأسع سنيه وح الله وحروايات للشيء أما أحاديث لسوريو كان وأسع سنة إسلام كم وايان إسلام كتاب أن قرن مجرو ومتفق ويان حديث كانوا أن صحيح بخاري أنت جوجنا حديث كان وحلا جوري أصحاب وين وعانا واللي يرهدوا أبي سعيد الخدري اللي جوري أبي سعيد الخدري وحلو النبي صلى الله عليه وسلم رمضان كأيوه رادي شري رمضان كأيوه وكر هذه ليلة القدر جا هبي نذا هروك سومي معناه اعتكاف جري مركله وبدر شيء لحظة ومحيها تو وقت هذا لحية أيوه كر هذه صلى الله عليه وسلم موسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملك جلو ليلة القدر يقول مر كمدة وقت هذا أصلا بي أيوه النبي صلى الله عليه وسلم وحو و اعتكافي طبعا كده مركي أو لما يستي أيوه بحي أو لبعتن مع المضيء تكتر رمضان أيوه النبي بحي ونصلى لابت إسلام مركي وصلى لابت ماشي وصلى لابت ماشي وكو اعتكاف أيوه صلى لابت النبي وأصحابته أيوه قد بيه أنت إلهي دونه أيوه نقول صلى الله عليه وسلم وحكيري أن ماشان أن قفك إلى تشوجية هإلى تشوج وهسيوة اعتكافك waxaa lay tusay leelatul qadrigu inuu naga sii horeeyo oo tobanka dambe uu ku jiro habeenka waan hilmaamay buu yiri laakiin waxaan ogahay yiri oo aan xasuustaa inaan subaxda habeenka leelatul qadriga subaxda ka dambeysay aan ku dhex sujuuday biyo iyo dhooqo intaasaan ogahay buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam marka nabigu uu sheegay waxa uu saqarin xaqiiqdii an wuxuu yiri dhooqa ayaan ku dhex sujuuday buu yiri maadaama asxaabtu ay la tukan jireen nabiga sallallahu alayhi wasallam waqti walba وإن الله صعدا ومعناها عدين تصويان إن وحوليه مركا صحابي كان وينو وحاب ماشي يبد بالرابع يمدوا ليه هبين كسبة إركو صحاب ما لهم مالها غارق وتعالى صحابة ما لهم مركا نبي أساس وقود بيني صلى الله عليه وسلم أضو ضرورة اسكي ما دير الله كان سبحانه جل وعلا مساجد كي بيصوغ لين صلاة الصبح مركا تكني أنا جا أركب وليه وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيها النبي يقول البابا هبين صلى الله عليه وسلم أن وحنا أركي إن كل سجودي بيو يلاقى marka wuxuu leeyahay masaajidka ay biyo soo galeen masaajidka ay biyo soo galeen uu leeyahay nabiga fabasurtu leeyahay kanaha fabasurtu ayni rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam wa nadartu ilayhi insarafa min as-subhi wa wajhuhu mumtaliyun diinan wa ma'an markaysa النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح مركو تكذي أنا إن لهيجا كو أركيور وجيجي سوى حاكبو حلوقا يبيا كبو حيور كذا شهروبك حالة داي مركا هبينك كو يلا واتنك بشو أي تاي واتساها أي نقطي سداس أي أصح كتاي وحنجعل هاي وكلاته إن الأسوي قد بهدي لها يرهدو أغواش علماء إن نمك اللي رأته الشافعية أيا وحن لا هي بشارو رنتي شافعيدو waxay aaminsan yihiin habeenka leelatul qadriga inuu ku jiro maxay ahayd 22 waa kana عند شافعي ليلة 21 waxa soo gudbiyay Sheekh Nawawi oo culimadii ugu waaweyned Shaafiiciyada sidaas isku waafaqnay yuru dhamaanteeba jamaacada Shaafiiciyada waxaan isku waafaqsanahay yuri inuu Ramadaanka ku jiro leelatul qadrigu wiligiisna uu soconayo ilaa qiyaam saaca inta laga gaarayo ان maxay ahato habeenkaasna uu yahay habeenka 22ka bisha Ramadaan inuu yahay waxa si xaqiijinaya arintaas xadiis uu soo gudbiyay ninka la yiraahdo Tirmidhi xadiiskan Tirmidhi ku sugan waa kana xadiiskan Tirmidhi ku sugan wuxuu leeyahay Imaam Shaafici uu ka hadlaya Imaam Shaafici wuxuu sheegay meeshan وهذا كيسان ماشان إنه ليه هي أن شافعي وقال شافعي كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يشاء ما يسأله النبي صلى الله عليه وسلم جوابتي سوعيهات إنه وجه جواب قفك سيده وهو يديه هذا قفك سؤال ويديه جوابتنا أسوأ أو راعيه النبي كما هو ما يجري صلى الله عليه وسلم لكن قفك دو انت سؤال ويديو نبي كسغو نبي صلى الله عليه وسلم جوابت saxda ay jiri laakiin dadku badana way degdeg jireen markaas ay hadal hor dhigayaan nabiguna ma rabin oo kor yimaado wuxuu yiraahdaa wada meeshaas ka raaj halkaas macnaha marka wuxuu leeyahay waa kana Shaafici wuxuu leeyahay qala Shaafici aqwa riwayat عندي فيها ليلة 21
ayuu leeyahay imaam shaafici waa kan ahaa riwaayadaha ugu adag ee leylatulqadriga ka hadlaya axaadiista macnaha waxa weeyaan habeenka 21 ay tahay bishu weeyaan waxaadna ogtihiin inaan arrintan hab cilmiyeed saxa u soo bandhignay oo macnaha sideeda waxyaabaha cilmiga mathematical wixii ku yimaada wax cilmiya weeyaan wax xaqiiqa weeyaan waxaan ku keenay xisaab in habeenka 21 ay tahay habeen ku beegan leylatulqadriga markaan tirinay xuruufta maxay suura qadri leylatulqadri maxay suurada leeyahay suura dukhaan xuruufta ka hadlaysa leylatulqadriga aayadihii markaan tirinay quraanka guud ahaan dhammaantiis aan tirinay markii aan suura namli aan ayada naftirkeeda aan xisaabinay bisinka ku jira markii aan xisaabinay xuruuf muqaddica markaan xisaabinayno kaleeto macnaha meelaha aan ka helay leylatulqadriga 21 inay ku beegan tahay xisaab male wax la tiri kara maahan waxaan ka helnay bilaha cadadkooda markaan xisaabinaynay aad iyo aad u fara badan yihiin maantana waxaan soo wadaa haddii ilaahay yidhaahdo qayb aan ka dhicin kuwii horeeto dadse ka horreynba waatan ahaa waxaad ogtihiin oo aan casharka hore kusoo qaadanay meeshaan inay tahay leylatulqadri leyla waa mucayin habeen la yaqaano weeyaan suura fajri waxaa ku taalla walayaalin 10 toban habeen waxaan ogahay in meelo kale loo saarayo fasirka noocaasa laakiin tobankaas uu quraanku ka hadlayo suura fajri ka hadlayso aniga fasirkayga waxa weeyaan tobanka dambe ee ramadaan weeyaan tobankaas dambe oo ramadaan leylatan ayaa ku jirta iyo alqadri labadaasaa ku jirta laba shay muhiima weeyaan marka waxaan gelaynaa qaabka quraanka loo baari karo wax looga raadi karo ayaan gelaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan raadiyey oon waqti fara badan geliyey inaan helo leylatan macnaha mucayinkaas ah noocaas ah quraanka dhexdiisa imse jaray soo laalaabanaysaa arrinta la yaab kale meeshaan taalla aan idin tusay waxay soo laalaabanaysaa halkan ayaan geliyey webkan aad macnaha page-kan aad u fudud oo macnaha dheereeyo casriga ayaan geliyey waxaana ka helay inay ku jirto leylatan sax ah oo sidaas ah 7 aayadood oo quraanka ka mid ah subxaanallahi alcadiim waxa la yaabtad maanta arki doontaa haddii ilaahay yidhaahdo meeshaan waxaa ku taalla suura baqara aayadda 51 suura baqara aayadda 187 leylatan uxila lakum leylata asiyaami rafathu wawaacadnaa muusa 40 leylatan mujada meeshaan tan qalad waaye kam min fi'atin qaliilatin waaye taas lagu dari maa 2 aayadood suura baqaraan ka helnay hal aayadna waxaan ka helnay suuradda la yidhaahdo suura acraaf aayadna waxaan ka helnay suura dukhaan waa aayaddii 10 aan ku furannay 3 aayadoodna waxay ku jirtaa suura qadri 7 aayadood oo quraanka ka mid ah ayaad waxaad ka helaysaa magaca leylatan oo macnaha sidaas mucayin u ah habeenka isaga ah habeenka leyl maahan layaal maahan waxyaabaha noocaas oo dhan maaha waa leylatan ta'niidkaas ta'daas ugu dambaysa oo sii cayimaysa habeenka ay tahay macnaha marka 7 jeer ay ku jirtaa quraanka 7 meelood ay kaga jirtaa quraanka macnaha 7 aayadood meeshaana waxa ku jirta marka suurada 7aad aayadda 42 waxa ku jirta 2 meelood 2 meelood ay kaga jirtaa waxa laga yaabaa dadka qaarna isiraahdo 8 meelood ay kaga jirtaa quraanka dhexdiisa sidaas awgeed waxaad sheegaysaa waxa kuma jiraan meeshaan waxaan jeclahay inaan caddeeyo wawaacadnaa muusa 30 leylatan ayuu ilaahay leeyahay jalla wacala 30 maalmood ayaan muuse u ballan qaadnay meesha aayaddii suura baqara laga yidhi wawaacadnaa muusa 40 leylatan subxaanallah marka quraanka iska hor imaanaya maya iskama hor imaanayo laakiin meeshan cilmiyaa ku jira meesha waxaa laga soo qabtay dhammaadkii hawsha laga soo qabtay laakiin meeshan tafaasiil ayaa ku jirta 30 maalmood ayaan muuse u ballan qaadnay uu leeyahay ilaahay jalla wacala inaan la hadalno oon wax u sheegno wax barno wa atmamnaahaa ب10 10 ayaan ku buuxinay uu leeyahay allah jalla wacala fatama miiqaatu rabbihi 40 leylatan ballantii oo ilaahay la samaystay oo ilaahay uu miiqaadkiisii oo la kulankiisiina wuxuu ku idlaaday dhammaantood 40 maalmood marka meeshan tafaasiila la gelshay waxa la gelshay 30 iyo 10 iyo 40 xisaabaa ku jira meeshan oo ku jira meeshaas waxa ku jira 1000 halkaana iyo maxay 40 halkaana iyo 10 halkaana iyo 30 halkaana iyo 40 halkaas waxay isku noqonayaan 1120 tira ay isku noqonayaan numberka 7 u qaybsamayaan number 2 u qaybsamayaan number 7 u qaybsamayaan 8 u qaybsamayaan waxa noocaas u qaybsamayaan 4 u qaybsamayaan marka waa arrin cajiib weeyaan runtii
sidaas weeyaan macnaha xisaabaa ku jirta iyada naftirkeedu xisaabtuna waxa weeyaan waxay u qaybsamaysaa nambaradaas aan soo sheegay oo 2 laga bilaabo 4 8 7 nambarada noocaas masalan waxaan leenahay 1120 ayaa waxaan u qaybinaynaa 7 aan u qaybinaynaa 160 aan soo hartay si kale hadii loo dhigana noqon karta 6 iyo 10 noqon karta maxaa la 7 noqon karta 7 ay noqon kartaa iyada naftirkeedu waa hal lagu daray 6 7 ay noqonaysaa marka 7 isku weer ay noqonaysaa 7 isku weer ay noqonaysaa ku xiran total halkaas ku jirtaa leelatul qadrigu 7 isku weer ku jira hadii ilaahay yiraahdo marka waxaan sameynaynaa sidaasan u helnay 7 aayadood ka helna meeshaan marka aayadan looma fasira karo inay macnaha xabad siyaadaha inay ku maadaama ay ku jirto xabad siyaadada inay macnaha wax kala ka hadlayso waxay ka hadlaysaa tafaasiil 30 maalmood iyo 10 ugu dambeeyay bisha ayayna ka hadlaysaa meeshaan qiyaasta macnaha cabirka meeshaan ku jira waxaan raadinaa marka al-qadri ayaan quraanka dhexdiisa ka raadinayaa bal la soco waxaad ayaad arkaysaa al-qadri magaceeda la yiraahdo laylatul qadri la yiraahdaa laylatul qadri quraanka dhexdiisa waxaan ka helnay al-qadri 4 meelood laakiin aan hubinno bal suuradda 77 aayadda 23 suuradda la yiraahdo suura mursalaat rabbi wuxuu oranayaa jalla wa ala faqadarna fa ni'mal qadiruun markii abuurtaanka bani aadamka uu ka hadlayay Allah subhanahu jalla wa ala al-qadiruun faa'ilki Allah weeyaan subhanahu jalla wa ala marka al-qadri maahan meeshaan al-qadri weeyaan al-qadri ayaa loo baahan yahay al-qadri quraanka dhexdiisa waxay ku jirtaa 3 meelood oo kaliya ay uga jirtaa quraanka dhexdiisa 3 dubana waxay ku jiraan suura qadri ku jiraan waa aayadda 1 aayadda 2 iyo aayadda 3 mar kaleeto 3 number ayay wataan cajiib weeye 3daas meelood oo kaliya ay quraanka dhexdiisa ka helaysaan meel kale bal isku dayna ka raadisaan ha ku daalinina marka 3 aayadood iyo 7 aayadood maxay tahay macnahoodu waxaan aragnay mid laba jibaaranaan aragnay laba jibaarkaas uu tilmaan kale bixinayaa in la laba jibaaro macnaha in la isku dhufto waxaan ku dhufanayaa 3 lagu dhuftay 7 ayaan leeyahay 22 halkaas ku fariisatay waxaan leeyahay hambalyo shaaficiya waxaan leeyahay waxaan isleeyahay anigu ilaahay baa xaqiiqada og laakiin hadalka ugu rajaxsan oo ugu muhiimsan waa kaas ahaa 22 bisha ramadaan waxay noqonaysaa habeenka laylatul qadriga ilaahay idankiis sidaasan anigu u arkaa meel fara badan aan ka soo naqliyay oo macnaha si weyn u cadeeyay ma sha Allah waxaan isleeyahay ilaahay fadligiis xaqiiqo weeyaan isleeyahay wax lagu helay quraanku hadlayo maxay ahayd ii sheegeen xadiis nabiga ay ka hadlay sallallahu alayhi wasallam aqwaal fara badan oo culimadii axbaarta ay ka hadlayaan mathematical system lagu helay marka saasi u agtahay ilaahay idankiis waxaan jeclahay marka inaan iraahdo ma sahlanta in la helo habeenka 22 bisha ramadaan xaqiiqdu ma sahlana habeenkaas 22 bisha inaad haleesho ma sahlana sababtiis ku sahlaneen maxay tahay bisha waxa lagu soomaa sida ogtihiinba waxa lagu soomaa maxay ahayd taariikha lagu soomaa waxa laga yaabaa bishii dhalatay in la iska soomaa laga yaabaa oo 2 maalmood ka hor dhalatay oo la bilaabo soonkii ka bacdi in iyadoo dhalan bal iska soomaa laga yaabaa marka waqti fiican ha loo hormariyo waqti fiican ha laga daba mariyo habeenka 22 kaana xoog ha la saaro habeenada witirka oo nabiga uu sheegay sallallahu alayhi wasallam ee kaleeto ee 23 ka 25 ka 27 waliba 10 ka dambe oo dhanna xoog ha la saaro laakiin xaqiiqdii ilaahay ba og aniga macnaha cilmigayga ugu faraha badan waxaan isleeyahay wuxuu ku jiraa habeenka 22 bisha ramadaan sidaas ayaan jeclaystay haddii aan xaq sheegay ilaahay subxaanahu jalla wa ala waxaan weydiisanayaa aan ka codsanayaa aan ka baryayaa inuu maxayatu miisaanka xasanaadka ii saaro haddii aan wax khaldayna rabbigay waxaan ka baryayaa inuu sakii cafiyo Soomaaliya ilaahay ku anfaco iyo islaamka oo idilba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh